ابو ابو محاد عي محاد waxaan ku sheegay waxay ya niga waa lagu qasbaa ma doonayaan wani ma hore ku sheegin baan jecel wani kula ya aan baan ku soo ku meerini oo ku guurno ku qaban ninka waxaan baan jeclaa hayaa ka tahay akhlaaq inta leey lagu qasbaa abo wallahi billahi hooyo waan qaraaciyo soo socoto hooyo ki ka dhalay kula hadlaya abaa meel aan ugu hayn daaba ki wada ka dhalay kula hadlaygiisu ha i dareemi weyd waxa raba marka abo dareenka nin baa saan ku galaa kala dab ku sameeyay I can't take my own decision aniga la yaa ku shaweeri mu shaga meeshan nin kala garaacay ma halkay ma qasam sabir xaga tugta leedbadi haya ma maqlaysaa ya بقل مش عشان بسوي راعي بس بنتا يا ابد مين هاي الرجال هو الأردوين هو ده فلوس من زمان الله يرحمه ما كاتوري طب برضه بقول مين هو يا بايا لا ابد واحد تيجي صعب من قال بسيء وولاك وإرابتك وأنا كنت أكون كريا وأنا كان لنا نروح عليه وتراعي حداد فاعل وذاك سكت أغنية هيا أبو السلام عليكم. عليكم السلام. والله عبد الغني بقى. ها ورا ابو بروف. ايوه. ورا ابو خير. هو يمال. بس ما ما يماني. الحمد لله. شقدي بكم قنتي. ولي ما يصور وحين. واي. halkaas dadka ugu soo shaqeysa. Inta ay qusrada bacad ka soo fadhida. Adigu ma diabd inaan ka fiican bad dhashayba. Isma aan lahayn. qiimaan kugu ogaa kugu tirinay. Hay. Islaanti muraad dilaac bay la maqan tahay. Hay. inay waxaan ka baqayaa meelaha ku dhacdaaba arada iyo naxdinta hayashay anna xalay ma seexan sidii la igu sheegay ma seexan raganimo iyo faridnimo aan kugu ogaa nin maanta hooy islaan hooyadii leeg ama ka weyn soo kaxaysta asagoo inaan yara dee aabba kuguma wadin taaba gabadha ma aragta islaanta ii sheegtay islaanta been bay ii sheegay been ma sheegayso waa 8 jir bay waa 8 jir qurux badan haye oo hadda darto عبانك iyo baheede mid kale islaamtu waa ganacsato lacagna way haysataa waxna way ina taraysaa anigu naftayda uma guursanayna inaga inoo guursani haye te abo waad garanaysaa adigina itaalka guba ogi haye hooyana waad garanaysaa soo waxaad garatay maaha shaqo yar aan ka shaqeynay masaxaada baan ka dhaxira haye luulka haye adigu qashin aad farfaarayso hadda luul ka dhaxirato ma iskaga imanaysaa haye yaabo eeg waan soo qaatay lulkii marka waa fursade mid kale islaamtu dacaska magaaladayda keenta waan gartaa wax allaale wax dacas aynu xidhanno iyada leh waan gartaa soo wax garatay ma aabo marka aabo waxaan doonayaa gabadha islaamta inaan guursado haye gabadhna ma waa runtaa waa islaam haye laakiin waxaan u guursanayaa waa idinka daraandiid waan gartaa aabo ma fahanti maxay nasiinaysaa ya maxay nasiinaysaa meher bay ka bixinaysaa ya iyada de ya meher maxay maya de may waxayna tarsa geer bayna dhisaysaa gurigeena siinaysaa gurigeena dhisayna dayactiraysaa marka xalay keen waxay tiri ma taqaana gurigeena dhisayaaba hay guriga dhisaysaa bilaabaysaa bari bilaabaysaa oo dhisaysaa ha ama la hubaataa de hada beeba ku sheegay wala lacag leeyba lacag le iyo ha baadiga maxay ku siisay maaniga oo aniga ma si mar uga baahanay xoolaheeda baan aalay hay oo gawaadhada iibinayso iyo waban dhoofayaaba ma gaari ku iibisay de way iibinaysaa haye gaari ba macradka yaala la soo wadaa way iibinaysaa qaar bay Yurub baa kaga diraya islaamtu waa islaan ilaahay inoo soo diray heede ka jaarkeenu waa ka isaguna baqtiyay intaanu inaga qaadin islaamtu hooyo inooga dhamee aan iska guursado warasade ina yar baa tahay hadii ay hanti leedahay oo ay waxaan ugu tarayso adiga wax ku tarayso ku dhoofinayso oo damaganaysa baabuur ku iibinayso gaari iibinaysa maxaad malayn madiga adiga dameer qadiga ku iibsaad ku shaqaysataa hay ma hubtaa ha ana ka dhameynay afar baa loo baneeyay kuweynada waa soo guursan kartaa de ha imika soo waxaan ka yar baqayaa baqin waxaan ka yar baqayaa hay baqin aniga inaad taas ka fadhidaado in yar guursan wada lacag bad ma guursanaya insha Allah taala hadii aan calafkeedana aan taana helo waana guursanaya insha Allah dumarka afar baa loo baneeyay hadda si ashiga saa jirto way gabadhaasi dahabka sita tahay jabal islaanta waan ka maslaxayaa islaantiga maslaxo mid kale soo tomadhama iibiso
tufaax shirkad tufaaxaan u furaynaa aniga islaanta xaasku Daliga. ha shirkad tufaaxa keentaba ayaan u xidhaynaa waddanka ugu xidhaynaa marka waa khayr ilaahay inoo keenay aabe ragnimada waan kugu ogaayay abdaadaaba waxaan ka yar baqayaa hee baqin aabe inay dee aad afka ii macaaninaysaan waxay jirin maya anaa ku tusaya oo ku baraya ku keenaya aabe dee ninku meesha wax ka keenaba hadaad gabadh lacag shiidanaysa inoo keentay ha islaanta anaa kaa maslaxaya